warsalaantiina kama gaare Soomaaliya dhageysta qowlkii ilaah iyo sharca lagu qaboobaa wax kale oo la qoraansadaa qurux ma yeeshaan quraafaadka iyo beenta waa lagu khasaaraa khilaafkana quraanka ka digay qoorta noo suran iska quba qarmuunka iyo xiqdiga way isu qarisaanay war waa markii ugu horeysay oo 27 sano kadib khilaaf madaxda sare dhaxmara ay kaligood ka heshiiyaan soo laguma dhihin war ninkan qaraxyadii dhacay ayuu kaala hadlay iyo qasaari ay geysteen madaxda aqalka sare ayaana ka hadashay haddii tirada la qarin jirayna runta laga sheegay maanta 21 qofood ayaa dhimatay bay yiraahdeen 60 ka badanna waa dhaawac war hadal wax ma tare wixii dhig loo ka ama dheheen aryaa wixii dhig loo ka ama qasanaan dheheen hadii la yeelayo nimankan dhawaaqasan dhig wal dhigaas iyo inay dhaay wal aragayaan meel dhammaag rahmaanka ilaahay noo dhahsiibo goladuna dhibaayaan hadduu jiray cadow qablihi qasaarada geysa jiray waxa yimid nacab qashiin qof raba dilitaan qof kale qudhiisana raaciyo maatada qarxiyaa bedelay warnimada qaraxyada ugu dambeeyay saamayn xanuun badan bay reebeen qaraxii soobe waxa ku dhintay 3 qof oo waalidiintoodii qaraxii shaam oo ku dhinteen qaraxii naasablood waxa ku dhintay dictor shiid oo shaam oo ku dhintay wiilkiisii oo dictor kala ah qaraxii u dambeeyay hotel saxafina waxa ku dhintay in Cabdirashiid Ilqayte oo qarax horo isla saxafi ka dhacay aabii ku dhintay qaraxii shalana waxa ku dhintay Faysal Samow oo walaalkii uu ku dhintay qaraxii naasablood walaalkiis kale iyo aabihiina ku dhinteen baladweyne qarax ka dhacay dad badan oo sidaas abaana jira in yar oo naqaanay baan idin sheegay ama maqlay waa dhibane qarax Soomaalida inta badan haddana ma diirayno oo qaar ka haray way iska qosleeyaan aryaadaha qaraxyadaan cudurrada ay reebeen oo cunka aan bal la yaaban dadkii oo dhan wees hoolayaan ay isxogaayeen xagagaf sunmiyay ku soo dareen sun ha loo qasay war hada wixii ma qabyaalada xitaa qaraxyada abayaashood iyo wiilashii isku xogxaga lagu dilaya war almiina hadiiba aana la dhaafin qaraxyada sawtii la yiri 4.5 ha laga dhigo deegaamada loo qaybiyo qarax la sheego to waanaysa to kale alla ma noogu daro aamin ana runtaan idin sheegay balaayo hadiin laga hirin sidaan lay u soconaysaa ogaada arro adi ma ka dambeeyina allahay ka allah warnimayo waxaan idin hayaa halku dhigyadii laga diiwaan galiyay sanadkan dhamaanaya ee iga dhageysta darbi ayaan ka boodnay siyaasiyiinta xanaaqsan madaxweyne albaabka iga fur dastuurkii dalka waa la haday 30 milyan haysta oo aan aabii ka dhaxlin xan fareesh ayaan idin hayaa 1991 ayaa loo laabanaya magaalo guuraysa WhatsApp ayaan ku ansixinay 28 sano kadib markii uu horeysay dadka bidaarta leh waa in naafada qaranka lagu daraa horaa loo soconaya qaran dumis mooshin musuq maasuq wasiiro loo eedeeyay xatooyo dadweyne waan qaraabanaynaa sanad gudihiis 4 wasiir oo hal wasaarad isku bedelay kala wareeg madaxtooyadu dadka kama dhaxayso iyo ugu dambeyn waa markii uu horeysay ee musharax madaxweyne oo mashaariic xabsiga ku cabo war ilaa hadda wax qabadka dawladda noo sheegtay aryaadaha hala waxaan dhageystay gabar xildhibaanad oo ka soo qaxday Jubbaland waxay tiri xildhibaano kalena way iga soo horeeyeen anigana waa la soo raacday xilkaygana waa la qaatay waxayna tiri Jubbaland hal nina macallin dugsi ka ah inta kalena waa ardadi wax ka maqlaysay war gabadha aad sheegaysaa nidaamka iyo kala dambeynta midha ka soo horjeeday macallimiin badan ay u baahay qabtay galmudug tag warnimada gudoomiyaha gobolka Nugaal waxa uu duqa magaalada Garowe ku eedeeyay inuu dawladda Soomaaliya xiriir la leeyahay waxaana uu yiri waxaan uga shaki qabnaa inuu yahay nabad iyo nolol waana in xilka laga qaado war waxa la yaaba goormay nabad iyo nolol dambiyada la isku eedeeyo ka mid noqotay wartan la iska eedeeyay tiilifadaay meetan boorka number 4 dhatunka gorongu walaa una xariistay wariyaha Awil Daahir shalay Soomaalida qarax ku dhimatay ka mid ka ahaa madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray inta ka nool tacsiib ay u direen Ali Mahdi Maxamed Abdi Qaasim Salaad Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Xasan Sheekh Maxamuud Maxaa Abdullahi Farmaajo shantaasiba tacsiib ay u direen law war kalimiyu falayniyo war Muuse Bixiba ma la sheegay arshib nagad ma saga madaxweyne Hirshabelle laba sheegay war Mustafa Xagjarba ma sheegin lug ila ma ilaahaysiin gooy ma seen ara lafta garaan oo madaxweynimadiis fareesh abino taasiyay ma ka darneeraysa wala wadalan yaw war madaxweyne xaafba ma adna ku darin boowe Abdi Wali gaasba meedinka tacsiida dadka diray uu ku jiray nagu yiri war waad waalantiin madaxweyne Asiis Sheekh Axmed Uxul meedinka ugu soo daray yaa
oo madaxweyne badanaa waxaa ma maran yihiin alqaaracadka maa laga maray war waa markii u horreysay ee Manchester United ay hal kulan 5 gool dhalisay muddo kadib niman yahow war gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhanka amniga Mr. Tuurax wuxuu yidhi alxamdulillah ilaahay qarixii uu naga badbaadiyey 7 qof baa iiga dhimatay tuulax wuxuu yidhi qaruxu inuu maha yimaado habaxsanaantaan yaa keentay xaal laga rabaa rumow sheegay war barnaamijka isxilqaana tiyaatarka wasaaradda dastuurka maanta ka shaqaynaysay marka waxaa caddaatay isxilqaanka dhismaha ee dawladda inaan isxilqaanka isqarxiska shabaabka hor istaagi karin war eleemasaarka sin sheegaysaa madawiinaga lafta garan ama la eleemasaarohay walaalaha Soomaaliland Mustafa Aksar baa aqoonsaday maxay idinka baahantay isxilqaankiinba ma doonaysay war qarxi shalay ka dhacay daljirka daahson inta boor meesha surneed waa baaba'een kii madaxweynaha bas ayaa ka haray waxay caddaynaysaa taas madaxweynuhu inuusan qarax iyo mooshin midna kursigiisa uga kacayn armaye waxay caddaynaysaa madaxweynuhu inuu gees yahay uusan shabaabka kudaynin war taas waxay caddaynaysaa madaxweynaha inas awliya yahay war madawiinaga maraykan owli iyona maraykanna ma inaska jira iska gali walaalaha taas waxay caddaynaysaa inuu madaxweynuhu inuu yahay kaligii taliye war taas waxay caddaynaysaa madaxweynuhu inuu bulad guruuf ku dhex jiro war bulad guruuf laguma badbaado ma laguma badbaado يا مدحوينها كلي تلي حاضر له إذا